saxaabadii rasuulku uu jannada ugu bishaareeyay sallallahu alayhi wasallam iyagoo nool uu yiri jannaday galayaan nimanka laayay waay nimankaas marka sayiin horta rasaastan aan idin wadna hadda maghrib inoogama dhacay nin walba rasaastii uu ku dagaalami lahaa oo waqti dheer hadduu alla yiraahdo hadda baabuurka saaranta waan uga soo dejinayna haddaad shalay idinka oo neefafkiina intaad gadateen rasaas ku gatay cadowga la dagaalamayseen maanta in gaadiidkaas oo dhan rasaas idinku raranta oo wax rasaas la yiraahdo nooca ay doonayso hadday noqoto in ka fikireen rasaastii aad lacagta ku gadanayseen iyadoo bilaash haddaan idin keenay soo iskama dhicin kartaan nimankaas soo deegaanka kama saari karno laba xaalaba anigu waan idin ballan qaadayaa waa midda koowaad ee rasaas la'aan ma noqon doontaan insha Allah waa midda labaad ee qofkii dhaawacmana halkaas diyaaradana u soo istaajin ka qaado oo dhaawaciisa dhakhtar geys laba shay oo muhiim ah Soomaa rasaastan aan idin wadna hadda maghrib inoogama dhacay nin walba rasaastii uu ku dagaalami lahaa oo waqti dheer hadduu alla yiraahdo hadda baabuurka saaranta waan uga soo dejinayna waxaan idinku imaanay xaaladda dhabta ee jirta inaan ogaano kadibna sidii wax looga qaban lahaa aan guda galno dagaal la idin fari maayo waxaa tiin waa la yaqaanaa dadka tiinna waa la yaqaanaa halka aad khawaarij gaarsiiseen iyo meeshaad uga soo harteen iyo waxa aad dulligoodii iyo xumaantoodii aad Soomaali tusteen nin walba uu yaqaanaa nin isagiiba duulaan lagu yahay oo gurigiisii lagu jiro oo cadowgii uu jiro hadda 4 kiiloomitir dardaaran uma baahno wax dardaaran ma u baahantiin dardaaran idinka qaba waxaan idin sheegayaa dawladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay garabkiina yihiin ummadda Soomaaliyeed inay garabkiina yihiin waxaan idin sheegayaa haddaad shalay idinka oo neefafkiina intaad gadateen rasaas ku gatay cadowga la dagaalamayseen maanta in gaadiidkaas oo dhan rasaas idinku raranta oo wax rasaas la yiraahdo nooca ay doonayso hadday noqoto in ka fikireen cadowga ma la iska celin karaa rasaastii aad lacagta ku gadanayseen iyadoo bilaash haddaan idin keenay soo iskama dhicin kartaan nimankaas soo deegaanka kama saari karno waxaan idinka rabaa hadduu alla yiraaho laba xaalaba anigu waan idin ballan qaadayaa waa midda koowaad ee rasaas la'aan ma noqon doontaan insha Allah waa midda labaad ee qofkii dhaawacmana halkaas diyaaradana u soo istaajin ka qaado oo dhaawaciisa dhakhtar geys laba shay oo muhiim ah Soomaa arinta saddexaad oo uu ka hadlay xildhibaanku oo iyaduna mudan in laga hadlo waa arinta raashin iyo in nacfi la helo arintaas hadduu alla yiraaho sida ay tahan u qaadanayaa ninka la yiraahdo sodma hay'adda oo ka hortagga musiibooyinka qarankana caawaba insha Allah jawaab inaan ka helno yaan ka shaqeyn doonaa waxaan idinka rabaa marka insha Allah in cadowgaas saad ula dagaalaysaan iyo saad yeelaysaan iyo la idin fari maayo la idin sheegi maayo shan iyo toban iyo weligiinba saad u socotaan baad meel walba ka saari jirteen waxaa la rabaa marka cadowgii in sidii hore ula dagaalamayseen ula dagaashaan sidii ka duwan aad ula dagaashaan shan aad ugu baxdaan toban aad ugu baxnaan deegaanka ma yaqaano dadka ma yaqaano meel lama yaqaano ragga hadda meeshaas fadhiya GPS baa lagu wadaa macnaha application baa lagu wadaa GPS baa la dhaho yaa lagu wadaa hal geeda ma garanayaan laakiin geedihii baa taqaanaan meeshii biyaha laga cabayaa taqaanaan meeshii la marayaa taqaanaan ma nin saasaa inagaga adkaan kara dhulkeennii dadkeenna waxaan idinka baahannahay hadduu alla yidhaaho nimankaas meesha soo galay dawladdu dagaalka idinku hagi maysa ee dagaalka idinka hagan dawladdu waa idin taageeri dagaalka saad u galaysaanna dawladdu idin sheegi maysa idinkaa garanaya waayo dhulka saad ku ilaalin jirteen idinkaa yaqaan waxaa la rabaa marka cadowgaas soo galay inuusan habeen nasanin oo maalin nasanin oo magaalo uusan ku nasanin oo miyi ku nasanin oo hawd uusan ku nasanin cidda samayn karta waa idinka arrintaas marka waxaan idinka leeyahay hadduu alla yidhaaho dardaaran badan uma baahno idinkaa la idinka rabaa shaqadaas iyada inaad u istaagtaan waxa xagga naga jirana diyaar bay idin yihiin rasaastan aan idin wadna hadda maghrib inoogama dhacay nin walba rasaastii uu ku dagaalami lahaa oo waqti dheer hadduu alla yiraahdo hadda baabuurka saaranta waan uga soo dejinayna qodobkaas qodob weeye waxaan rabaa wax yar inaan idinku baraarujiyo dagaalka aad gelaysaan qofku markuu shaqo qabsanayo ama shaqaalo uu meel ka yahay wuxuu u shaqeynaya soo inay wax uga soo baxaan ma natiijo يا
xoolaha maanta dhan markaad shubaysaan waa in caano laga helo hilib laga helo oo la gato soo ma dagaalkan aad gelaysaan marka natiijadiisaan rabaa wax yar inaan idiin sheego dagaalka aad gelaysaan waa jihaad xaq ah laba shayba waan idiin sheegayaa waa midda koowaade khawaarijta nimanka la dhaho waa niman diinteennu sheegtay waa nimanka asxaabadeennii ridwaanullaahi calayhim khulafaa'u raashidiin saxaabadii rasuulku uu jannada ugu bishaareeyey sala allahu calayh wasallam iyagoo nool uu yidhi jannaday gelayaan nimanka laayey waayo nimankaas marka say yihiin horta ma muslim baa waxaas nimanka marka saxaabadii laayey ee cuthmaan iyo cali iyo cumar bedilay dhiiggooda iyo waxay yihiin iyo wax walba ajir baa laga helaa hadday ku dilaanna shahiid baa tahay haddaad dishidna jannaad ku gelaysaa hadday ku dilaanna shahiid baa tahay oo qof shahaado ku dhintaato jannada ugu sarraysa gelaya haddaad dishidna waxaa weeye jannaad ku gelaysaa labadaba marka waxaad ka shaqayn